والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم xubnaha golaha wasiirada wasiir ku-xigeenada gudoomiyaasha madaxda kale agaasimayaasha guud ciidamada shaqaaleynaha wasaaradda horumarinta maaliyadda waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii waa iska sunnaha dawladnimada in mar kasta ama madal kasta oo xil wareejina aynu markhaati ka noqonno inagoo dhegaysanayna agaasimaha ama mas-uulka xilka wareejinaya waxqabadkiisa mas-uulka kale cusubna runtii ku soo dhaweynayna wasaaradda labada agaasimo guud waa laba agaasimo guud oo runtii muddadii aan dawladda u shaqaynayay aan la soo shaqeeyey waxaana runtii ka markhaati kacayaa in agaasime maxamed gurxan iyo agaasime maxamed muwaadinka labaduba runtii ay lahaayeen dabeecado iyo dhaqan runtii aad u wanaagsan oo xagga wakhtiga ee ballanta iyo runtii arrimaha aad ku wada jirtaan howlaha aad wada wadaanba runtii sida ugu macquulsan ee ugu wanaagsan ee ugu horumarsan runtii u waday agaasimaha hore ee wasaaradda maaliyadda maxamed runtii waxaan muddo fara badan ka wada shaqaynaynay qaabka dib u habaynta shaqaalaha dawladda oo qayb ka ahayd wasaaradda horumarinta maaliyaddu iyadoo ay ku sidkanayd dib u habaynta maaliyadda oo runtii laba reform ama laba maamul oo dawladdu ay wado oo runtii iskabayay dhinacna iska taageerayay inuu ka mid ahaa dadkii agaasimayaashii budriga uu ahaa reformka runtii aan wadnahay shaqaal ahaan oo aan runtii uga mahadnaqayo doorkii uu ku lahaa hanaankii uu ku lahaa iyo sidoo kale doorkii uu ka qayb qaadanayay hanaankaa runtii socday agaasimaha cusub runtii isagana waxaan muddada ka wada shaqaynaynay barnaamijka shaqo qaran oo aad og tihiin inuu ka mid yahay guulaha ugu waaweyn runtii qaranku uu ku faanaya maanta uu gaadhay inuu ka mid yahay barnaamijkaasi meesha keliyaata ee maanta qof shaqaalaha laga shaqaalaysiin karo markuu barnaamijkaa soo maro in runtii wanaagga barnaamijkaa laga sheegayo iyo ammaanta barnaamijkaasi uu lahaa ay kow ka ahayd hoggaamintii maxamed muwaadinka oo runtii aan maantana aaminsanahay in wasaaradda maaliyadda uu sidii iyo si ka wanaagsan runtii u horumarin doono muwaadinka waxaa ku soo dhawaynayaa runtii oo kale institutionno kale ama madallo kale oo runtii uu ka noqon doono xubin oo aan wasaaradda maaliyadduun ahayn sida inuu ka mid noqon doono boodhka sare ee guddiga maamusha maxadka tobabarka shaqaalaha sidoo kalena uu ka mid noqon doono guddiga sare ee maamusha maxadka tobabarka shaqaalaha dawladaha hoose oo runtii uu ka mid ahaa agaasime gurxan agaasimayaashii doorka ugu waaweyn ku lahaa horumarka laga wado labada maxay ahaydee maxad ka dawladaha hoose iyo ka dawladda dhexaba sidoo kale waxaan wada wadnay oo uu halbowlo wasaaradda maaliyaddu ay ahayd mashruuca dib u habaynta shaqaalaha mashruucaasoo runtii guulo waaweyn laga gaadhay oo keenay xeerka shaqaalaha dawladda inuu hirgalo oo keenay in shaqaalaha maanta qaranka u shaqeeya ay kow ka yihiin oo ay ugu sarreeyaan agaasimayaasha guud inay shaqaale dawladeed noqdeen oo halka ugu sarraysa ee shaqaale laga soo qaadaya ay tahay agaasimayaasha iyo shaqaale hoosaha ka hooseeya oo dhan marka runtii hirgelinta xeerkaasi oo ay ka dhalinayeen 16 siyaasadood waxay ka mid ahayd halbowlihii iyo waxqabadkii hay'adda shaqaalaha ee runtii wasaaradda maaliyadda oo wasiirku ugu horreeyay wasiir ku-xigeenku iyo agaasimuhuba ay nagala shaqaynayeen muddadaas yacni xeerku uu jiray sidoo kale xeerka shaqaaluhu wuxuu ka sheegay agaasimayaasha guud waxyaabo fara badan oo runtii agaasimuhuna runtii dee uu ka mid ahaa agaasimayaashii hore ee hadday tahay xeerkaasi tababarkiisa iyo ka warhayntiisaba qayb ka ahaa oo aanu ahayn agaasimo maanta runtii aan ugu sharaxaya halkan wax badan uga sheegayo laakiin waxaan ugu bushaaraynayaa inaan dhammaystirnay hay'adda shaqaaluhu ay dhammaystirtay hagaha wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada gudoomiyaasha iyo agaasimayaasha guud ee cusub ee ku soo biira dawladda inaan u diyaarinay buug kooban oo xeerka iyo 16 siyaasadood waxyaabaha ka khuseeya marka agaasimaha ama wasiirka in runtii inaan soo koobnay oo buuggaasi dhawaanna runtii aan kula wadaagi doono tusaalaha waxaa ka xusi doonaa wasiirka cusub ama agaasimaha cusub si uu la socdo reformkii ama waxqabadkii soo socday muddadaasi inuu xogta 16 siyaasadood iyo xeerka shaqaaluhu ay ka sheegayaan uu ka ogaado sidii uu horumarin lahaa goobta shaqada uu markaa u joogo
dhawaana runtii agaasimuhu kula wadaagi doontaa insha Allah annagu xafiiska ku keeni doona sidoo kale waxaan u rajaynayaa agaasimihii hore maadaama uu ka mid yahay agaasimayaasha xeerarka shaqaaluhu ay maanta damaanad qaadeen inuu ka mid yahay shaqaale weynaha qaranka gaar ahaan shaqaalaha hay'adda shaqaalaha inaan isagana u diyaarinay isaga iyo 5 agaasimo oo kalaba TRkii ama hawlqabadkii ay ku shaqayn lahaayeen muddooyinka runtii ay nala joogaan nala shaqaynayaan taasi oo ku kalsoonahay in reformkii aan wadnay uu qayb ka sii ahaan doono maxamed burxan oo runtii ku kalsoonahay maadaama marka horeba qayb ka ahaa maantana uu annagana noo noqon doono dad aan ku faano runtii hawlaha aan wadno nala riixaya sanadkii ugu dambeeyay waxaan ka shaqaynaynay siyaasadda mushaar bixinta iyo darajooyinka oo runtii agaasimuhu uu ahaa dadka sida dhow la socday siyaasaddaas waxaan rajaynayaa siyaasadda hirgelinteedu maadaama oo dhawaan aan hirgelinayno inuu ka mid noqon doono runtii dadka nala riixa nala hirgeliya sidii ay u dhaqan gali lahayd siyaasaddaasina runtii door ku yeesha aniga oo runtii ku kalsoon aqoontiisa iyo aragnimada muddada uu la shaqaynayay wasaaradda annagana uu nagala shaqaynayay horumarinta siyaasaddaas ugu dambayn kolley agaasimaha waxaa ka muuqatay khudbadiisa waxqabad aad u weyn waxaana rajaynayaa in isagana ammaanta uu leeyahay lagu ammaani doono qarankuna uu hayaa abaalkaasi sidoo kalena uu halkaa ka sii qaadi doono agaasimaha cusub muwaadinka oo runtii waa aragnimadiisa aynu ka dheehanaynay taariikhda runtii uu inala wadaagay anigoo yar umaan maqli jiray xogayaha golaha wakiilada laakiin inaan la shaqeeyo maanta aad bay sharaf iigu tahay oo runtii ka mid noqdo agaasimayaasha aanu sida dhow wada shaqayn doono maadaama wasaaradda maaliyadduna ay tahay wasaaradaha ugu dhow ee runtii aanu xidhiidh ka leenahay maalin kasta warqadda aan qoro waxaa laga yaabaa xafiiskayga maalintii in dhowr iyo 19 warqadood ay ka baxaan warqad aanay og ku lahayn wasaaradda maaliyaddu ma jirto marka taasi waxay kuu sheegaysaa iyo bangiguba xidhiidhka dhow ee aanu leenahay inuu yahay runtii mid aad u qoto dheer oo hannaanka dib u habaynta ee aanu wadno wasaaraddu ay ka mid tahay wasaaradaha halbowlaha u ah ugu dambayntii waan u ducaynayaa xilka qofka marka loo igmado weliba meel maaliyadeed la keeno wuxuu inaga mudan yahay inaynu ducayno in ilaahay xilkaa ku aslo saaxiibkay waxaan ugu ducaynayaa oo aan si dheer ugu ducaynaya inuu ilaahay xilkaa ku asdiro oo uu ka midho dhaliyo ahdaafta iyo hiigsiga aanu hiigsanayno ee runtii go'aannada iyo xeerarka iyo siyaasadaha madaxweynaha iyo wasiirkuba runtii isaguna uu ka midho dhaliyo wasalaamu calaykum